السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhawaada Seto Academy. Maanta waxaan ka hadlaynaa haddii Ilaahay yiraahdo methods of analysis. Methods of analysis waa mawduuc cusub oo noo bilowmay. Horey waxaan uga soo hadalnay waa maxay electrical engineering, waa maxay circuit, waa maxay current, waa maxay voltage, waa maxay power, waa maxay circuit and electrical circuit elements, waa maxay series, parallel, Kirchhoff's laws aan uga soo hadalnay. Si intaas aan soo arkaynay waxaad markhaati ka ahayseen ama intii la socotay aad u soo aragtay in laba sharci oo aad u muhiim ah aan ku soo shaqaynay. Labada sharci waxay kala ahaayeen Ohm's law iyo Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws waxay kala ahaayeen labo, current law ama Kirchhoff's current law iyo voltage law ama Kirchhoff's voltage law ayay ahaayeen. Maanta circuit ayaan labadoodii uga shaqaynaynaa. Tusaale ahaan sidaad meeshan ka aragto methods of analysis waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah mesh analysis. Mesh analysis marka wuxuu la xiriiraa Kirchhoff's current law sidii looga shaqaynayay. Cashirkan waa introduction, qaybtan waa introduction. Waxaan uga hadli doonaa fikirka aan u baranayno qaybtan, laakiin inta gudaha aanan u gelin adigu dib ugu laabo waxa la yiraahdo Kirchhoff's current law. Haddaan ku xasuusiyo KCL gadaal ugu laabo. Kadib marka KCL gadaal ugu laabatid waa soo ogaanaysaa cashirkan markii aan ka shaqaynayno waxa la yiraahdo nodal analysis. Markaan ka shaqayn doono waxaad arki doontaa ama haddaad xasuusan tahay KCL inay aad iyo aad kugu fududaanayso. Sidoo kale markaan joogno nodal analysis waa main important inaan fahamsanahay nodal analysis intaanan u gudbin electrical engineering qaybihiisa kale. Waayo horey saan usoo aragnaba isku xirka resistorkan current sourcegan resistorkan kale isku xirkooda waxaa loo yaqaanaa circuit, ayagana waxaa loo yaqaanaa circuit element. Marka waxaan raadi doonaa currentiga maraya qaybtan waa maxay, waa analyzing. Currentiga qaybtan maraya waa maxay, currentiga qaybtan maraya waa maxay, currentiga qaybtan maraya waa maxay baan raadi doonaa. Sidoo kale currentigan waa imisa, intaasoo currenti baa analyze lagu sameynayaa. Markii qodob walba inta currenti oo maraya inta voltage oo maraya baa inaan soo helno la rabaa. Marka waa analyze, sidaanay noqonaysaa. Marka ma analyze garay kartid adiga oo aan fahamsanayn waxa la yiraahdo kow current adigoo fahamsanayn, waa maxay voltage adigoo fahamsanayn, waa maxay voltage source adigoo fahamsanayn, ama aan isku wada qabto circuit elements adigoon fahamsanayn waa maxay circuit, adigoon fahamsanayn waa maxay loop, adigoon fahamsanayn waa maxay node, adigoon fahamsanayn waa maxay branch. Waxaasoo dhan adigoon fahamsanayn ma analyze garay kartid. Sidaa darteed intii hore oo aan soo marnay si iskugu xigxigeen haddii aad u soo fahamto aad iyo aad ayay kugu fududaanaysaa. Qaybtan waxaan ku shaqayn doonaa nodal analysis waxa la yiraahdo KCL. Qaybta labaad waxaa la yiraahdaa mesh analysis. Mesh analysis waa mesh analysis wuxuu sheegayaa asna oo la xiriira waxa la yiraahdo KVL oo aan hore u soo marnay. KVL oo aan Kirchhoff's voltage law ah oo aan hore uga soo shaqaynay buu la xiriiraa. Ayadoo la isticmaalayo Kirchhoff's voltage law waxaa la analyze garaynayaa currentiga maraya resistorkan, currentiga maraya voltageka maraya resistorkan. Adiga shay kasto voltage iyo power iyo nooc kasta baa lagu analyze garay karaa. Fahamsan? Si aan u analyze garayno marka waa inaad sharcigan asna aad dib u soo fiiriso ku laabatid. MB saaro kadib ku laabo labadan sharci aad u soo fiiri. Maalmaha aan ka hadli doono oo cashiradan mid walba midkiiba wuxuu adiga dhowr cashar waaye kiiba oo waan ka hadli doonaa. Marka
haddii aad rabtid inaad si clear u fahamtid mesh nodal analysis iyo mesh analysis waxaa kugula talinayaa in aad labadaas sharci Kirchhoff's voltage law iyo Kirchhoff's current law iyo Ohm's law Ohm's law saddexdaas sharci inaad sida ay yihiin u soo akhrisid ama aad u soo fiirfiirisid ayaan macnaha aad kugula talinayaa marka meeshan wax aadan arkin ayaa ku jira waa shaygan calaamadaas maxaa waa calaamadaasaan ka hadlaynaa hadhoweytu markaa casharka dhex galno inay waqti nagu qaadato ma rabno hadda calaamadaasaan ka hadlaynaa calaamadan waxaa loo yaqaanaa ground ama earthin aa loo yaqaanaa earthin ama ground aa loo yaqaanaa marka electrical engineering marka la joogo la dhahay earth ama groundigu waxaa waaye reference point meesha laga duulo waa meesha laga duulo hadda meeshan aan ku qornay waa ujeedaa v1 iyo v2 intana waxaa waaye halkana waxaa waaye v0 waa v0 waa macnaha waa 0 waa meesha laga duulayo tusaale ahaan real life haddaan kaga soo qaato guriga oo aad joogto gurigaadu markuu saan oo kale yahay oo saan oo kale gurigaadu uu yahay korontaa soo gasha sax korontadaas fridge-kay tagtaa leerarkay tagtaa telefishinkay tagtaa meel walbay tagtaa soo maaha meel walbay tagtaa meesha markay tagto ayada dhan aa la isku soo aruuriyaa mid walba xariga waxaa la socda la yidhahdo ground ama earthin dhulka la gelishaa marka xarigaas dhulka ayaa la gelishaa si ground loogu sameeyo marka groundiga waa meesha laga duulo ama meesha haddii guriga marka maxaa loogu gelinayaa saas sababta loogu gelinaya maxaa waaye waxaa loogu gelinayaa haddii shoog uu ka dhaco macnaha uu fridge ka dhaco ama telefishinka uu ka dhaco shoogaas korontada qaldan ama saacadda ku xiran ay kusoo gudubto koronto ka badan ama current ka badan ay soo gasho qaladaa dhacaya qaladkaasna wuxuu soo aadaya dhulkuu aadaya dhulkuna waxaa ognahay best conductor waaye wuu qaadayaa korontadii dhulkuu gelinaya ayadana maraan ka hadli doonaa dhulka maxaan ugu shoogi weynay haddii dhulka current ay gelayso conductorna uu yahay annagu maxaan shoog u qaadi weynay waxyaabahaas maraan ka hadli doonaa laakiin hadda ground inaan fahamsiiyo waaye qasabku groundina waxaa loola jeedaa qaybtaas oo dhulka la gelinayo waa kana asaa kuusii fasiraya in electrical circuit uu ku dhaha marka la joogo electrical circuit voltage-ka la cabirayo waa inuu yeeshaa common return path waa hadda wadadan kuu sheegayo currentiga oo dhan hadda v1 v2 waxa dhan waxay soo gelayaan currentiga dhan waxay soo gelayaan v series ay soo gelayaan waa ila fahamsan v series soo gelayaan for electric current and or a physical connection waa in guriga marka la joogto real life-kii waaye to the earth waa in dhulka toos loogu xiraa ayaa la yidhahdaa marka laga hadlayo earthinka sawirkiisa horta marka engineering tahay drawing is engineering language macnaha luuqadda engineeringku waa drawing haddaad drawing taqaanid ama aad fahmaysid engineerku waa ku fududiya tusaale ahaan marka calaamadahan waxaan u sawiray inta loo qaato waaye macnaha groundiga kan haddaa aragtid waa groundi kan haddaa aragtid waa groundi kanna haddaa aragtidna waa groundi annaga marka sida tog ahaan waxaan isticmaali doonaa kan ayaan isticmaali doonaa inta badan hadda kanaa xagga noogu xiran waa ujeedaa soo maa kanaa xagga noogu xiran waa ujeedaa kulli waxaan u isticmaali doonaa kanaan isticmaali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka groundina intaas ayaan uga gudbayaa marka cashirka soo socda ama cashirada soo socda macnaha intaas waa introductionka waxa la yidhaahdo methods of analysis way fara badan yihiin laakiin labada ugu muhiimsan vitalka ah waa labadan marka labadan waxaan ku fargaray doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku fargaray doonaa ciwaanadan steps to solve each ama mesh node iyo mesh analysis iyo node analysis labadooda mid walba stepska lagu xaliyo ayaan sheegaynaa kadib stepskaan raacayna macnaha stepskaan qoraynaa example aan qaadanaynaa stepskaan ku dabaqaynaa kadibna
answerkaan soo saaraynaa hadhowti suusan kaaga lumin. taas waa wadada koowaad. wadada labaad waxaa jirta ciwaan la yiraahdo asna taas waa ciwaan guudeeda. marka hadda node analysis oo kale waa ciwaan guud, macnaa ciwaankan stepskiisaan qoraynaa kadib aan ka shaqaynaynaa, kadibna saasaan ku dhamaystiraynaa. mesh sidoo kale ciwaan guud uu leeyahay, kadib ciwaankaas guud baan ka shaqaynaynaa. kadib ciwaan labaadoo waxaa jira node hoostaga oo la yiraahdo super node, asna waa ka shaqayn doonaa, waana arki doonaa si fiican aan cashiraan ka diyaari doonaa. sidoo kale meshku wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo super mesh, asna waan ka shaqayn doonaa. marka stepskan saan ayaan u weedi doonaa. marka koowaad examples iyo steps oo super nodal analysis aan ka shaqayn doonaa, kadib mid oo waxaan ka shaqayn doonaa super node ah, kadib node analysis oo dhan waa naga tega, nodal analysis oo dhan wuu naga tega. waxaan usoo laabanayaa mesh analysis, mesh oo solver iyo stepskiisaan ka shaqaynaynaa, kadib haddana waxaan ka shaqaynaynaa mesh super mesh, intaasaan ka shaqayn doonaa. intaas markaan dhammayno waxaan bilaabi doonaa wax la yiraahdo theorems. wax la yiraahdo theorems ayaan bilaabi doonaa. theoremskaasaa noogu xigi doona, waa chapter gooni ah, chapter 3 aan ka dhigaynaa, macnaha chapter 3 aan ka dhiganaynaa. marka ila socda, saasaan wadaynaa haddii ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iidi doontaan. fadlan haddii cashirada aan soo dhigno ay ina caawiyaan ama ay wax iniin taraan, waxaan inka codsanayaa arday sidoo kale ah, sidiinoo kale ah oo wax ay tari lahaayeen ayaa jira. ku caawiya ardadaas in ay gaaraan cashiradan. anigu markaan baranayay haddii qof sidaan oo kale iigu sharaxa maanta mesh analysis iyo nodal analysis iigu sharax haddaan heli lahay, aad iyo aad ay iigu fududaa lahayd. laakiin alxamdulillah waan kasoo fakanay. waxaan marka isku dayaynaa cilada aan soo aragnay inaysan arday soomaaliyeed ku dhicin. aad iyo aad aa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.